dhalinyaro badan oo ku haminaysay dhoof iyo inay tahriibaan ayaa bilaabay ka qayb qaadashada horumarka dalka iyo inay soo bandhigaan bilicda deegaankooda. kulankan oo ay soo abaabuleen aqoon-yahanada degmada Xudur waxaa lagu soo bandhigay cuntooyinka gobolka Bakool caanka ku yahay, qudaarta noocyadeeda kala duwan oo lagu beero xaafadda Buulow iyo aqabyo hidaha iyo dhaqanka aanu gaarka u leenahay. waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Xudur, dhalinyaro lagu casuumay oo ka kala socday xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Xudur iyo dhalinyaro qurba joog ah. dhammaan waxay ku riyaaqayeen fursadaha la siiyay. dhalinyaro ku faraxsan barnaamijka ku dalxiis deegaankaaga aadna ula dhacay quruxda goobta lagu casuumay ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed la wadaagay farxadooda. ما شاء الله جيك ما بكمت هاي دتك جيك قريب قالي كده الحيس دلك هاي ما شاء الله ما بهاي برنامج إذا نقرح بدن دتك أبى ولين إذا كمان نقي ما قال إذا كباقي أنت دتك دبتشي كمان قن دل يكفى إذا إسلام وأنا مال قلدا وأنا قريب قلدا سيد الفضايا باشلني الحمد لله إلهي نمعدي سك باشلني إلهي نهري سك كراهي سني مركا ونو جو جاين اسكو دقني مجلي بلان لمبا goona fadhina daaqadayna bunkayna wal una noo moqnayna aan lahayna eedna aan damaashaadnay barnaamijka ku dalxiis dalkaaga deegaanka aan ka faraxsano barnaamij aan qurux badan aan wali ay dadka ku qayb galay waan aan ka farxay aan ka damaashaaday insha Allah intii hor la sii wado rajeeyo geek wala baroognay mid kamid ah beero dalxiiska degmada Xudur beeraha Buulow runtii inta geek kamid baa ka aagnay cunto dhaqameed fayla ee sheedan oo uu ka hadal meel raayusan oo shal duwan ان runtii wal eedling hal kore ma wal eedan faylo in dalka kooyto Xudur oo geek sagaaran dad badan ma ka aleena oo af Yurub roogan in Yurub leem ana green ata magaar ata hadda meelo Xudur roogan degmada Xudur yar roogna in xaafada Buulow beerta raaxada ama dalxiiska waa barnaamijkan ku dalxiis dalkaaga deegaankaaga waay marka runtii waxyaabaha farqiga wali baa geedkan hadda san ka saarat arafta waa araf inta hadda ma wala dareemas geedaha tirada badan oo Yurub yaalo agaarka geeda arafo ma waa dhul nabaad guuri inta badan soo badan laakiin araf ma leh. degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo higsanayso horumaro dhinacyo badan leh, hirgelinta dhismayaal indhaha soo jiidanaya iyo goobooyin kale oo lagu dalxiiso. xilligan magaalada Xudur waxaa dib ugu soo laabanaya dhalinyaro wax ku soo baratay dalka gudihiisa iyo dibadiisa. dhalinyaradii soo abaabushay barnaamijkan loogu magac daray ku dalxiis deegaankaaga ayaa sheegay inay hadafkoodu ahaa in dhalinyarada ay tusaan quruxda deegaankooda. geek way roogneeha barnaamijka ka dalxiis dalka iyo deegaanka iyo oo una qaban qaabiyaal ka hayni waana hadiyaarini dhalinyaro badan una inta madin bandhignayoon iyo cajiibin aan ka mahadsiin unina fikrada saytino koyti madino koyti dadan jeedini dadkiinu jeedini cajiibin kun jeerana mahadsiin deegaankii ka adiban waana habandha ka kort waana adi hoos giri korto reer Bakool gaar ahaan reer Xudur weyn surugna intii deegaankii kayna banaanka hadhagna naan alalankii banaanka jaran weyn sheegana intii deegaankii shay dalxiis lan kooy kor maantan kooynay barnaamijka ka dalxiis dalka iyo deegaanka leero untan kooyne oo ujeediyay hayti unhan abaabulni intii dhalinyaro inay sheegna oo inay iska sheegna intii oo deegaanka iyo bilicda iyo wax soo saarka bandhakan oo aan la kawada oo meel eraayis la isku wada sheekaysada barnaamijka sageek intan kooyne muhiimadu uu ku leenan may buu ahaa intii dhalinyarada isdhaxgal soo bixin hayti intii baa ku qayb galeen eedeedan kama hasanin geek may bantinayso kooyne damaashaadka iyo ku dalxiis dalkaaga oo taasoo la ka bandhigay dhalinyaro badan oo marka hore iyo aaminsan in dalka ka dalxiis kor laakiin si una mar walba diyaaran ana una teegna dalka quruxis intuuna bandhigna as gabdha Xudur ahaan hoobuneena may baa aaminsan intii dalka keekana meel ku qurux badan intii jarna runtii mar walba may baa una teegna musikala una hogaan dalka keekana quruxisa bandhigna. gudoomiyaha xafiiska maaliyadda ee maamulka degmada Xudur Aadan Cabdi Abaarey oo ka soo qayb galay bandhiga ku dalxiis deegaankaaga ayaa uga mahadceliyay dhalinyaradii abaabulkan sameysay. ilaan ka faraxsana geeka inaan ku qayb gala barnaamijka dhalinyarada ka magadartay deegaankii iyo dalka kiika dareeran kooy ama ka dalxiis wal eed muhiim ah inii la kooyo dabcan magaalada maamulsheega kumid aha nasiib wanaag maynin naga tahay meel badan oo dadka ka jiido korna waan ka weero korna inuuna leena dhalinyarada barnaamijkaas hagaasintay waan dhulku bilcidis habiidi meelana eedan ma santin hidii dhaqan fayl inta la ka bandhigi marka dadka dibadda jara ama belede kala jara meelana dalka kiika dareer hanka ba
marka hoob dalka dareeradan kooyta ma aragaas hemeelun email badan ku suurad ku siile marka beertu may kumid tahay beero magaalada Kiyaala dabcan beer badan ku sii suurad badan la hela marka waqti roobaad iyadoo la kajara ini lukweel eedan faylaada fadhi bilicda la araga laakiin nasiib wanaag walba waqti joolayin dhalinyaradii hagaasintay may laha eedan ma santiin dhalinyaradii isugu yimid beertan oo ay ku dalxiisayeen ayaa waqti fiican ku soo wada qaatay waxaana damaashaadkooda ka mid ahaa sawiro ay isaga qaadayeen gudaha beerta maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyaha telefishanka qaranka magaalada Xudur